سالمان نركب بشيء يا يتوس أنا وينين إيش هالمري ما يمسك أوكي ما بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عايز لجونا dhalinyaradi قفل baa la degayaa galaaskiisa qaad maya yaar tartiib ya ujeedin markay qadayaan oo xarnaan adag mid kale kan si sik kan may kan u dhaweey kana mid kale leeni keenaya isku dhaweey sabaan adiga u salaxaya afar oo galaysiin ma oo ka bax keenaya oo jeedin waa baalisleyaashii walaashay maanta marka live ku jiraad awra waa gudoomiye live ku jira xagee maya waa xamrooyinaan joogaa ku awal hadda baan soo baxe waa ujeediin nimankaana waa loo soo wadaa hadduu ilaah yidhaahdo marka maanta oo isla qadaynana kabacdiina qalabkii ku shaqaysan lahaa inaan siinaa waa laysoo wacay saaxiib dadaa teleefona iga soo wacayay marka hadda ka warrama qadka okay soo maha waa kuwii baalislayaashii waa bay casayaashaha marka aniga maaha qadka teleefanaa laga soo waawaca marka insha Allah anaa ka bixin doona lafta hadduu ilaah yiraahdo marka suugo ugu darday baasada suugo ma laha maleena marka oo kuwaas hadduu ilaah yiraahdo waa laynii soo wadaya marka waad dareemi kartiin maanta waa isla qadaynaynaa aye malin kugu soo daraa ya aye jagu soo dhowraa kuwaan agrig horta kuwaas ugu daran kuwaas ugu dar suugana ugu dar saaxiibo marka ujeediin maanta markay qadayaan kabacdi qalabkii ku shaqaysan lahaa inaan siinaa waa wareysanaa ninkii waxbarasho raba oo yidhahdo waxbarashaa laigeenaana diyaar nin saaxiibkii yiri anaa damaanad qaadaya marka taas kuwaas ugu dar kuwaas bisbaasa aku dilin gees uga darnaa bis sugidi aabo sugidi horta kuwaas ugu dar
uu gedi maysh kuwaas saxanka uu gedi labadaba uu gedi labadaba uu gedi linta ka bixi marka waxaan ka codsanayaa in dhalinyaradan garab la siiyo dhalinyaradan waa dhalinyaro shaqaysta maaha kuwa tuugsada waa dhalinyaro u baahan dhiirigelin waa dhalinyaro u baahan in gacan la qabto waa dhalinyaro u baahan in waxbarasho laga saacido waa dhalinyaro u baahan in la gacan qabto waa shaqaystaan hudda waa shaqaystaan abay caseeyaal waa caseeyaal waa shaqaystaan hadii shaqo waxaa u taqaanaa qof weyn oo shaqaysta bis dhalinyaradan waa shaqaystaan caseenimo ku shaqaystaan oo kabay tirtiraan marka waxaan ii sheegayaa marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo in la saaciday u baahan yihiin in dhalinyaradan la dhiirigeliyo u baahan yihiin dhalinyaradan waxay u baahan yihiin in gacan la siiyo u baahan yihiin marka waa dareemi kartaa waana u jeedin marka in la dhiirigeliyo u baahan yihiin aniga intay nafta ugu jirtana waa dhiirigelinayaa waa caseeyaal iyo baalashlayaal xaggee u kala wadaa baraada waa isku mid kabahay baalashaan waana caseeyaal marka waxaan rabaa inaan dhiirigelino inaan garab siinaa rabnaa inaan waxaan rabnaa gacan qabano waxaan rabnaa inaan garab siino waxaan rabnaa inaan dhiirigelino waa ujeediin waraa ciyaarta dhaaf ya marka waa dareemi kartiin waa laysoo wacaya xasan nadu wooga saaxiib dada isoo wacay markii laysoo waco waxoogaa connection problem u keenaa internetka gacanta ku haya wakaas internetka gacanta ku haya marka problemka waa wicitaanka brother marka waa dareemi kartiin maanta waa isla qadeynanaa markaan isla qadeyno kabacdi qalabkiaan siinaa waa xog wareysanaa ninkii waxbarasho u baahanna waan geenana hadduu ilaah yidhaahdo baasta mar rabo yidhi si briiskiisa no briis hartaa waa kaas baastada waa cuni laayihin kuwan baastaan idin kugu soo badiyay maa marka ya marka waad dareemi kartiin ninkaana dhalinyarada ii soo aruushay ninkaana dhalinyarada isku ay soo xireen nadu wooga aniga maaha waa shirkadda waa la raalli ahaado marka waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa carruurtaas waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin in raashin meel loo saaro waxay u baahan yihiin hadday shaqaystaan xataa meel wax ka cunaan ya marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo carruurtaas waxay u baahan yihiin maanta daryeel markay qadeeyaan oo faraxashaan oo biyo cabaan waxaan rabaa inaan nin walba qalabkiisa iyo miiska hor dhigo inaan wareysto inaan macnaha ii sheeg sii qadeeno qadeeyo adna qadeeyo sii qadeeyo intay faraxalanayaan kabacdi la fadhiisanaa mugta ya qadeeyo labadiina marka
waxaan rabaa inaan inii caddeeyo walaalayaalow istaahil soo dhowaa baay macanta soo dhowaa qadada cid loo diidaayo ma leh waa ujeediin waraa haddaa qadaysiin soo falxashiya miiska waa laydinka qaada miiska kusoo noqonaysiiya laba le ukacaya qof walbaa soo falxashiya soo tirtirto miiska waa laydinka hagaajina waa kusoo noqonaya marka asxaabay fiidowga inaan noo sheergaraysiinayn karawaa fiidowga inaan noo sheergaraysiinayn karawaa qof walbaa soo falxashiya qof walbaa soo falxashiya miiska waa la nadiifinaya waa kusoo noqonaya qalabkaan saareynaya marka waxaan rabaa inaan inii soo bandhigo caruurta waalid qaar hooyadooda waa dhinteen qaar abooyinkooda waa dhigteen dad wax haysta maaha waa dhalinyaradaasa ujeediin aniga shaqo kale ma hayn beryahan dhan ilaa maalin dhaweyd waa aniga lacagta u qaybiyey maanta waa in aan iyakiina u imaado oo aan maanta waxaan gartay inaan isla qadayno maanta waxaan gartay inaan wada sheekaysano miiska waana laka nadiifinayaa bustaqaada naga nadiif kabacdi waxaan ku sameynaa qalabaan u saarsaari rabaa ma fahmi ismaaciil hoy maasha allah khayr allah kusiiyo khayr allah kusiiyo maasha allah maasha allah waa kan mayno waxaas insha allah marka waxaan ka rabaa walaalayaalow dhalinyaradaas inaan wareysano oo qofkii yidhahda aniga ma shaqaynayo oo waxbarashaan rabaa inaan xareyno waxaan ka codsanayaa in aad ogaatiin bal waxa annaga nagala dhexeeya in oo micnaha ii sheeg nala ogaatiin caruurtaas marka waxaan ka codsanayaa inaan dhexdaan ka geli doono hadduu ilaah yidhaahdo waana inii soo bandhiga hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan rabaa in aad fiidooga noo sheergaraysiin waxaan rabaa inaad nala ogaatiin waxaan rabaa inaad wax walba aan qaybinayo inaad indhihiina ku aragtiin marka fiidooga noo sheergaray connection problem igu wadaa marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow banay waraa hala tirtira miiska waxaan ka codsanayaa xataa in ilmahan maalin walba qadadooda aad maqaayadan saartiin hooyo soomaaliyada maqaayadan iska leh waxaan rabaa in aad xataa 10kaas lacag badan maaha maalin walba inay ka cunaan maqaayadda waa saari karnaa 10koodaas markay soo shaqaystaan yaa damaanad qaadaya yaa damaanad qaadaya yaa damaanad qaadaya yaa caruurtaas u damaanad qaadaya in oo ii sheeg maxaa la dhahayay ay shaqaystaan in qadada laga bixiyo thank you maxamed xasan thank you walaalkay macaan istaahil deeq maasha allah dhammaantiin inta wanaagga igu jecel waa in taageersanahay waxaan rabaa marka inaan dhalinyarada in tuso in oo waraa fadhiistaya soo farxaliya marka waxaan rabaa please dhalinyarada inaan garab siino dhalinyarada waxaan rabnaa inaan taageerno uu shaqeynaa abay bateri leeyahay baterigan ka cabsoona baterigan ka baqa inuu dhaco bis meesha le wuu ka soo qaban karaa marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow inaad nala ogaatiin bal dhalinyaradaas fiidooga noo sheergaree waxaan rabaa in dhalinyaradaas aan wareysano qofkii waxbarasho raba inaan waxbarasho geyno ku xareyno qofkii shaqaysanaya inaan shaqada ku dhiirigelino qofkii waxaan ka rabaa in xataa maqaayad 10kan cunug meel loo saaro ay maalin walba markay soo shaqaystaan ay cunaan fadhiistiyaa saf galaya saf la galaya ini kale ini faraawriha
caruur yar yar waa caruur yar yar waa ujeediin caruur yar yar waaye waa ujeediin fariisa xagga horaan waa ujeediin wejiyadooda waa ujeediin obana waraacda ciyaarta dhaafno booskaaga tag adi maya mar xagga kan tag qalabkaaga hoos dhigo mujadiin oo kuwaas si fiican u fiirsada waa dhalinyaradaas waa dhalinyaro u baahan in la dhiirogeliyo waa dhalinyaro maya waayo ron waa sax waa runtaa dadkaas jalaqa u siin nin yurub jooga oo guri sare iskaga jira oo lacag haysta oo caruurtiisii badar u cunaan haysta haddii maanta uu caruurtaas wax loo qabanayo uu ka xun yahay waa nin xanuunsan marka waxaan leenahay hadalkiisa waxba hau qaban anaga keliya waxaan ka rabnaa in dhalinyaradan la dhiirogeliyo 3-4 qofood keliya haddaan helno 180 qofood ana fiirsanaysa waxaan rabnaa in dhalinyaradan maqaayadu waa meesha joogaan haddii xataa maalintii maamada la weydiiyo 10 waa dhalinyaro kale oo qadeynaysa marka nadu wogana hawada waa niman yar raalli ahaada hadda waa soo noqday waa ujeedaa marka raalli ahaada marka waa wareysan rabaa xaggaan tegi rabaa marka waxaan rabnaa inaan bal weydiino qof walba waxa uu jecel yahay ani laakiin waxaan ka codsanayaa in maqaayadan dhalinyaradan 10ka meel loo saaro maalin walba markay yimaadaan hal mar le wax ka cunaan Kawasaki iyagoo soo quracanay guryahooda ka soo tageen waa sixi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo meeshaan ku jirno waaye kaalin soo fadhiiso saaxiib aniga maaha meeshaan ku jirno waaye meeshaan waaye aniga maaha meel maqaayadan ku jirnaa banaanka ma joognin marka raalli ahaada wuu soo noqnoqonaya raalli ahaada wiilkii ma qadayno adaa ku sugaayo dadka markuu taganayso dadka ilaa
Ciao. Non so che no. Min daanaa soo galay. Moda. Badanta. Toban ku. waxaan rabaa inaan tuso waxyaabaha ay ku ganacsanayeen ya kumbuut marka waxaan rabaa inaan tuso waxyaabaha ay ku shaqaysanayeen ma ujeedin oo kalena marka kan isaga isku fiiriyo si fiican loo jeedo gabdha marka kaas waa dhamaaday iska xogaa baa fiican yahay marka suufkaas markaas haystaa iyo bahaladaas marka waa dareemi kartiin dhalinyarada duruufaha u dhiibay marka waxaan ka codsanayaa fiidog noo sheegaraysiin waxaan ka codsanayaa qofkii kaalin shaqadeena oo wadi doona inta naftu ugu jirto marka ay la shaqadan istaagi doonto laakiin inta naftu ugu jirto in shaqadeedu goor istaagi karto mar ciidan uga aabiyay mar waa wada inta naftu ugu jirto cid bini aadan ka soo mar dalkayga jooga dawladayda dhex jooga shacabkayga dhex jooga
ciyaalkan waxay kamid yihiin dhalinyaradeyda kamid yihiin marka inaan garab siino ayaan isku dayaynaa ciddii ku xun allah ku caafiya leenahay waa ujeedin marka waxa ay haystaan ay ku shaqaysanayeen iyo waxa aan rabnay inaan maanta siino waa kala labo waa dhammaaday kan waa dhammaatay kana waa ujeedin waa bacdi waxaan rabaa inaan ii sheego غير اللي هذا meesha ku jira ayaa ah maqaayad marka waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo aabbo Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo South Africa ku nool oo diiday magaciisa in inta laga sheego ayaa noo soo diray lacagta qalabkan ku soo diray iyo waxa lacagta aan ku qadaysiin marka qorayno soo ka dhaafay dadka ku fiirsanaya marka waxaan rabaa inaan idin kala caddeeyo labadaas marka نقرأ لهذا meeshaan ku jirno waa walaashaas waan ka bixinayaa walaashay farxiyo iyo hani iyo connection program ay soo qorayaan laale hada meeshaan ku jirno waa meel qaayad meel gool waaye laale hada marka waan u daaranahay ninka waxaan ka codsanayaa inaan waqtigiina nasiidin aan fiirsatay marka labadaas bahal waay wiil Soomaaliyeed aba Soomaaliyeed ayaa yiri qalabkaas u dad oo jeedina maraya qalabkii nin walba isku saaray marka arabna inaan siino qof walba laba inaan ku siinarna marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal ilmahan waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxbarasho dad Soomaaliyeed waxay weydiin inay qofkii waxbarasho u baahan ama waxbarasho geeyo oo wareysayna marka qof walba marka qalabka siino oo wareysayna maxaa jeceshahay haddii xataa aad ka saamici kartiin inaan dhul gadiin kama mahaystaan inaan dhul gadiin xataa ilmaha waxay u noqonaysaa niyaddooda in la dhiso yaalkan aan feeri disappointed waxaa niyad jabshay dadkay kaba u caseeyaan qaar lacag ma siiyaan qaar waa ka tagaan qaar lacag wareeg marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal inaan tixgelisiin waxaan joognaa oo jeedin maqaayadaan joognaa dhalinyarada maanta soo wadnay waan nala qadeeyeen arna qalabkii inaan siino marka waxay ku shaqaystaan waa waxaas aabbo Soomaaliyeed oo South Africa joogay ayaa yiri ilmahaas qalabka ku qanacsanayeen marka 10 caruur waay labadaas xabo waay taas kan isku fiiriya marka waxaan rabnaa inaan siino oo ku shaqaystaan marka waxaan rabaa inaan dalka intaan joogay inaan ka warhayo tobankooda ay qoran yihiin dhalinyaro kale ma soo wadin dhaafra marka waxaan rabaa inaan intuso qaababka intay leeyihiin qaar waxbarasho u baahan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo ragaa waxay iga codsadeen qofkii waxbarasho in la xareeyo baan inaan weydiiyo marka qalabkii aan u qaybayna خلينا ماشي خلينا نور بوينتس
naga baan hada asxaabi markuu qadka tagaba dadku waa sii yaraanayaan 86 qofood marka waxaan rabnaa qof walba inaan siino intaan qalabkan waa guduud aw labadan ay guduud saan isku arki marka mid walba waxaa lagu caseenaa madow madow guduud guduud kana alduna ka maqan kaya duntii siin aldun siin marka marka ujeedin intaas waa u dhamaystiran marka waxaan rabnaa inay ku shaqaystaan oo ay haystaan lacagtoodana ay jeebkooda ama waalidkooda siiyaan marka waan usoo gadnay in muddo ay ku moodi karaan marka waa ka warhaynanaa intaan dalka joogno marka waa kaas duntii kii lagu tolaayay suufkii waa kuwaas nin walba marka intaas camal aan siinana nin walba intaas camal aan siinana hadduu ilaah yiraahdo waan wadana connectionka noo dulqaato baa lahada connectionka problem kala agriga isku aad nin walba kistiisaan siinana لو سألت wixii soo haran waan arkaya marka dhalinyarada waxaan rabaan waa shaqo dhalinyaradan intaas ku ganacsiin marka haddaan niyadda loo dhisin wax suurtooaya mara waa la kala bedelaya في ماله وجانا marka waxaan ka codsanayaa دافنو والله هذا جبت لي والله في leef halku fiirsan ما بيستاهل وعبتها marka waxaan rabaa asxaabay inaad madnala ogaatiin marka waa qalabkaas nin walba bacdiisu gashanaa hadduu ilaah yidhaahdo wuu qaadanaya marsinana hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan ka codsanayaa in qof walba uu baabkii sheeg aniga oo qof walba ogaado ilmahaas waxaan rabaa inaan weydiino وعبد مونيكا ما بيجرو لا هو ده ma ku jiro marka waxaan rabaa inaan wareysano ma joogo ogaa عتري بدل actually
عنك محمد مغني يا قام خليه حد ما لا ساعة لك تدرسين أنا سوري بتوصل تاع شيء ما عندي العكسي أي شيء من جاشان ما قبرنا ما أي دي meel lagu geeyo oo lagu xareeyo marabtaa wax lagu baro adiga dugsiga iskuul mid mariyo yaa u shaqaysaa hooyada adiga u weyn waada ay dugsiga hadii lagu geeyo madhigay shaqada ku nacsan adiga yaa u shaqaysaa markii weydiin ya hooyada ma shaqaysaa adima cidda weyn ya okay dugsi martaa ma dhigataa meeqa saac dhigataa مال خميس أو adiga ya هاي مالي kuwa kale ka egeediin أنا اللي واي wada ma shaqaysaa wiilka ada lagaa rabaa xaggee deganta iyada tabeelaha maxaa degantay buushashka asinimada hadda maa bilowday mise hore uga shaqeynaysa ya hore maa uga shaqeynaysa maalinta meeqa heshaa marka yaa ugeysaa lacagta dhan fartaa ka saartaa ani kama reebin haddii qof kaba oo caseena uu ku dhaho lacagta ku tuura xagee tuura taleefka ayaa adiga magacaad qoli afka ya maxamed ay dugsi magataa ay iskool goorma ilaa 6 saac iskuulka xagu yaal wartama yakadi iskuul dhigta dugsi wariga 6 saac marka soo baxay shaqadan soo waad loo shaqaysaa hooyada adima ugu weyn kaas maxaa qabtaa dugsi wariga asaga adila ma ciduu shaqeeya geed geed بعد وشوش مانت ما عايش عليك صدنا فرت دي هاي العين مشي مرنا يا موت برام هذا شو اللي يجي شو اللي بينا كده سامي جدي سيو حفظنا حافظة كثير مثلا لف الماء حافظة الورعة بس حافظة التلا المدينة حتى هذا الحال أوكي متى لا اليوم أنا هذا أنا وقت نعم هذا عمرك ما بس بليت القرآن ولا القرآن مدينة أنا قرآن وادي هي يقول مسؤول لا أنت تفهم يا وحاق قرآن لا لا هذا دي دكسي يو لا يدي سكول ديار مطر يا وش قيسا إيه أو أيضا أيضا هي وش قيسا بس مركب دي دكسي لو جيو يو سكول ديار تمام عاد
qof walba wuxuu rabaa loo samaynayaa qof walba ninkii raba dugsi laga bixiyo dugsiyaa laga baxaya dadaa in fiirsanaya dadkaa in fiirsanaya in ka dhiibaya awayda بعمدو ما قدر واحد كلام قدر خلاص كان مش ليش كذا ولا مش ليش كذا مرت دوسي مو من قدر هاي كذا قدر هاي جماعة ما كذا شباب ما كذا قدر سكول ما كان مرت أبوه واحد رشيد بيدير موته برشو ديال الموتى هويدا منوشة يا بري يا أنا بري سي أنا أقول دين إن كل شيء هو حري ما يروح برشا لوجين بس أنت الحين حنون برا برا مين هاي صبر هاي كيسي في عندها ولا عاود يا سيما كيسي سايم طلع عندها يا ما هاي مو نعم صح ما على فين ما سيما اوكي دسم لي لا صح لي لا صح صح لي شغال ما صح صح شهر يا خميس جمعة خميس جمعة بس في أنت ما شاء الله ما كمان ترى ما في مركا عندهم حاجة دكسي القرآن دكسي سكول الدين وجدتها سكول حتى وجدتها في أنت يا كابي هلاك ما شاء الله قميصي يوحى شغال ما شاء الله يا بحنا وحبريا أي من سمر ما مش هذه ما هذه رشقي بابا هذا دي واحد برشلو جي مرتا برشلو سكول مرتا أبنا ما هم عيالكم يحبون يفرحوا من جوا ما أنتوا دقين وين ماشي مدقين ولا تجينا هذا مرنا علينا هاي ما برشا جينا فرحة ديار موتر هنا عبرت من سوي راضية افتح اي انا شفت مرت بس انا عبرت انا شفت عبر شنو واي محل مش مري يا وش قيس هو طلع انك لو وش قيس هو طلع ما انت من قبل maalintii 54 ايش هو يا امام maalintii meeqo way konton maalintii konton ka socoyna maalintii konton u geeysan ya ma isaga tarafaa ya maalintii konton u geeysan ma hooyada mashina Soomaaliya wara konton ugu dhuftay 30 meeqo ay soo sheegay كله فدي يا غالي كنت غالي كنت كذي وايد أمسي عمرني عيد أمسي يا موت لعيتها ما أنت وش هذا دي أمسي نوع برشلو جيمر تعمل أما سمت
waa ujeediin asxaabay dhalinyarada qaarna inay iska shaqaystaan ay rabaan oo shaqadayba rabaan oo waxbarashada rabaan qaarna waa ujeediin oo daruufo awgeeyey marka baliis waxaan ka codsanayaa asxaab badan iga codsatay inaa ilmahan wareysto oo waxbarasho rabo dhalinyarada qaar way rabaan waxyaaba ku yihiin inay waxbartaan sida ninkaan oo kale yarkan iga dambeeya ku wareysan adiga shan maalin 2 maalin u shaqaystaa khamiisi jimco shanta maalin kale waxu bartaa maasha allah wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo wuxuu u baahan yahay in aan familigiisa la xiriirin oo aan raan intaan waxbarashadiisii ku adkee aan xataa ka dhigin waxbarashadii maamada ay ka bixiso aan macalin qabtanaan raano lacagtii macluumaadtaas ninkaan lixdaas bilood lacagtiisu waa taa nin fiican wax baranayo waa maasha allah 2 maalin u shaqaystaa marka waxaan isku dayaynaa iyaga dhan inaan la xiriirno oo teleefanada ka qorno oo familigoodii aan weydiino inay ilmihii u ogol yihiin inay wax bartaan marka waxaan ka codsanayaa video inaan noo sheegaraysiin waxaan ka codsanayaa inaan garab nagu siiyo ilmahan anagu ma naqaano ninkaan walaalkeena noo soo arooriyey meela digin wallahi inaan weligeena ma aragin laakiin dadka qaar cudur ay qabaan ilmaha yarka ayaa la caawinayo qadin la siinaayo ay si kale u fasiranaayaan war haddaad waxba sadaqaysanayn ama aad dad caawinayn waxaa ku fiican inaad dadka iska dhaaftiin wallaahi ilaahi iyo tallaahi maalinta aad weydiinaa maalinta aad waxaa lagu weydiinaa waxaad ku hadashay marka iska dhaaf haddaada shaqaysanayn anaa waqtigeenii iyo internetkeenii iyo waqtigeeni gelinayna ilmahan aad qadamaada ka dhiibin qalab maada siin iska dhaaf igu sawir maaha anaga cuniyaan intaa qaadna sawir lama gelgelan waxaan u gadnay qadaan siinay annaga wax u qabeen qofka waxaad dhihi karta markaa intaad sawir la gasho aad tiraada ninkaan waxa loo qabto laakiin markaa wax siinaysa oo aad qada siinaysa oo aad qalab ugadaysa ugu sawir waa laga fiican yahay marka allah ku caafiyaan leeyahay dadka cudurrada qaba noocaasa iyo dadka mar walbaba kasoo horjeeda shaqada aan shacabku ahay allah ya caafiyaan leeyahay shaqadan waa wadaa inta nafta ugu jirto ilman allah naxariisto isagoo wada ku dhinto nimanka casayaasha iyo dadka shaqaalaha gaargacno u gadi jiray waa nin la yaqaano ilman marka waxaan rabaa inaan ii sheego marka waxaan rabaa inaan inii sheego mar labaa in kuga celiyo ilmahan waxay u baahan yihiin in garab la siiyo ilmahan waxay u baahan yihiin in la gacan qabto ilmahan waxay u baahan yihiin in hore loo kaxeeyo waxbarashay rabaan laakiin waxbarasho maystaan cunugan see waxbarasho loo geyn karaa ayadiisaa shaqo usoo dirsatay hooyadiisaa shaqo usoo dirsatay aabihiis aa shaqo usoo dirsaday ma fahamti سبحان الله وش سبحان marka waxaan rabaa inaan inii sheego suufraya gacanta ku haysnaa marka waxaan rabaa walaalayaal inaan inii sheego waqtiguna haya awgiis please waxaan ka codsanaa please inaan video noo sheegaraysin yaa garab nagu siinaya ilmahan maalin qaaday yaa iskuulaad ka dhiibay yaa shaqada waalidkood kala hadlayo oo dhahayo ilmahan waxbarashaa la geeyo ilmahan waa la xarayn karaa diyaar u yihiin laakiin waalidaa ku xariiray nin ayadiis u soo shaqeeya sida ninkaan oo kale ayay ma u shaqeysaa waa kas ayadiis u shaqeeya marka qof ayadiis u shaqeeya ma dhihi kartid shaqada iska jooji waxbarasha ku geena bas duruuriga cidduu raadiya marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal inaad ilmahan dhiirigelisiin ilmahan waxaa waaye dadkoodii iyo dalkoodii dhex joogaan hayse dhihiin dowladda maxay ugu qaban weysay qofkasa adaa wax u qaban kara aamin inay dowlad keliya wax u qaban karto fikrad qaldan ay aaminsan tahay annagaa wax u qaban kara adaa wax u qaban kara anaa hadda inii soo bandhigi qalabkaan hadda waa ka wada dhammaadeen kuwa cusub aan wada galnay fiiri kuwa cusub aan wada galnay marka dowlad uma gedin shaksiyaadna uma gedin
marka aabba Soomaaliyeed ayaad gartay in dhalinyaradan qalabkan loo gado yiraahdeen dhalinyarada ilmahan garabsi marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanayaa shaqada inay garab ugu siideen fiidooga noo sheergaraysiin dadaa waxay ga codsadeen dhalinyarada inay rabaan in college lagu xaray waa u baahan yihiin laakiin duruufaha u diidan waalidaa soo dirsaday aabahoodaa soo dirsaday hooyadoodaa soo dirsatay marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow waxaan ku shaqeynayo waa fikirkiin waxaan ku shaqeynayo waa waxaa idinka qabanaysiin waxaa idinka bixinaysiin waa aabba Soomaaliyeed South Africa degana qalabka dhalinyaradan u gaday waxaan rabaa markay dad ku daydaan dadka waa inaad ku dayatiin waa inaad ilmahan aad garab siideen waxaan ka codsanayaa yaa ilmahan garab lagu siinay ana cid walba inay soo bandhigana idinkaa iska bixitaan idinkaa caawin kara idinkaa iskuulka dhiibi kara idinkaa aa ilmahan garab siin kara walaalayaalow ilmahan hataa maqaayadan haddaa gabada loo saaro maama iskale maqaayadan waa toban cunug waa la dhihi karaa maamadaas maalin walba bishii $100 intii loo soo turo waa la dhihi karaa maalin walba tobankaas qado ku filan sii waxay u noqonaysaa dhiirigelin waxay u noqonaysaa iyaga laftigooda in soo shaqaystaan maqaayadii yimaadaan wax cunaan inaa markaas waxay helayaan qalab ay ku shaqaysteen iyo qado meel u saaran lacagtay helaan maca ciddooda waxay u tiraysaa laakiin hadda lacagtii isaga maa cunaaya ayayma u diraa sabuisi ma kala gataa saaka gurigooday kasoo tageen maantana maysa qadayn caawana iska badaaba lacagtii yareed ay geeyana laga yaabaa in wax loogu sameeyo marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal meel maqaayadan joognaa ininkoona tixgelinayay meesha lagu shaqaysan lahaa please waxaan ka codsanayaa inaa inii soo bandhig waa iga codsateen walaalkay waxaan fariinta gaarsiinayaa Anas oo kale walaashay Saacidi oo kale Saynab oo kale dadkii la soo xiriiray dhalinyarada u baahan yihiin college lagu xareeyo yaa damaanad qaadayo oo aniga lambaradooda ninkii ii keenay walaalkay waa ila joogaa waa raadinayaa college waa geenaya laakiin duruufaha u diiday yaa duruufahaas uga nala qaybsanaya marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa inaad ogaatiin oo shaqaan hayno marka waxaan ka codsanayaa walaalayaal inaad hoosha aan hayno aad nagu fiirsan dhalinyaradan garab u baahan yihiin dhalinyaradan dalkoodii ayay joogaan maanta waa ujeediin waa dareemi kartiin nolosha waa dareemi kartiin waxyaabaha lagu jiro waa dareemi kartiin nolosha ay ku nool yihiin maanta wallaahi billahi tallaahi si fiican ay u qadayin waanu ku farxsan laakiin waxaa la rabaa qofka asaas ugu farxiyey in ilaahay uu ka farxiyo ilaahayna ka farxiyaan leeyahay dad fiican oo wax caawinaya jirtiin howl fiican ay la qabateen dadaa guryo u dhisteen ilmo agoona iid u gadeen waxay kamid yihiin dadkaan dadka la caawinaya kamid yihiin waxay u baahan yihiin dhalinyaradan waxay ka doorbideen inay tugsadaan inay ku shaqaystaan alaabtaas wallaahi billahi tallaahi wax ka sharaf fiican marka qofka hadduu shaqaysanayo shaxaad waa ceeb inaad qof gacan u horsato waxaa kaaga fiican inaad alaabtaas ku shaqaysato nimankaan nima shaqaysta waay laakiin waxay u baahan yihiin garab waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo in la yarahay maxaa kaa maqan in lala sheekaysto koomadii waa ka dhamaatay kooma fiican raaso alaabtaan gasho waa henaysaa waxaa laga yaabaa kan inuu haynaayo dhowr bilood 3 bilood xataa inuu haynaayo tan laakiin shaqaday ku xiran tahay wiiga ku dhammaan kartaa laakiin waa iska soo gataa waa 6,000 oo shilin Soomaali marka waxaan ka rabaa walaalayaal dhalinyaradaas inaan lagu fiirsan shaqada way ka tiri badan yihiin maanta kuwa badan iska reebay kuwa badanaa jira marka waxaan rabnaa inaan isku keenno iyagoo tiro badan isku keenno waxaan rabnaa inaan dhiirigelino inaan weydiino kuwa shaqaysanaya inaan qalab usii gadno kuwa waxbarashada rabno marka waxaan rabnaa intii waxbarashada inaan ka bixino college ku xareyno intii shaqaysanaysan inta qalabkaan u gadnaan rabno shaqaysta dadkana fariintaan farana waxay tahay dhalinyaradaas kabaha caseynaya in lacagtooda la siiyo in respect codkaan diida marka waxaan rabaa walaalayaal inaad noo dulqaadatiin shaqa adag ku jiraan dhalinyaradan lacagtooda la siiyo qof walba oo fiirsanaya waxaan leeyahay saa dhalinyarada qool dhaqantaa ilaahayna kuu jaa-isayna nin u yimid inuu shaqaysto ku tuugsan walaalo kabaha kuwa caseena kabaha in boorka lagaga jafo rabtaa isagana lacagta u baahan kuma tuugsan
marka lacagtooda in sharafa loo siiyo walaalayaal fiido loo sheegaray yaa dhalinyaradan damaanad qaaday yaa iskuulka kuwa ka badan keenana hadduu ilaahay yidhaahdo iyakan hadda laba naamaan la hebel waxaan ka codsanayaa maalintaas intaan in ka badan inay keeni doona hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kala baxnaa inta waxbarashada rabta inta shaqada rabtana qalabkooda aan gadana intii waxbarasho rabtana kolejaan geenina marka waxaan ka rabaa inaad isku xirnaatiin oo qof walba uu xataa bacdiisa qaato uu suuqyada ka soo aruuriyo lacag dowlad nimahaas meeqa lacag ku baxaysa keligaa maaha inaad jeebka dhiibto suuqa kolejaa la geena tobankooda kolej la geeyo annaga faa'iida noo tahay dalka iyo waalidkoodna faa'iida u tahay marka idinkana ajar haysi marka walaalayaal waxaan kusoo gabagabeynaya balanteen waxaa waaye inaad dhalinyaradan kuwa ka badan furaha qiimo qalsinaan beri waa jimco maaho ya isku nimaanaya kuwii kalena waa keeni intiina way maqlisi qof aan ilaa ima sheegin waa maqnaaya maha isniinta duurkii oo kale maha intaan noo balan waa qadaynaynaa waa sheekaysaynaa shaqadii meesha inii maraso dadkii ila soo xiriiray waxay soo ka soo dheheen waxaasuna waa iskugu soo noqonaya isniinta maalinta isniinta hadduu ilaaha yidhaahdo qof walba oo raba inuu shaqaysuraa oo raba in qalabkan loo gado hore u soo wado la sheekaysta dhalinyarada weydiiye yaa shaqaysanaya qalab meherkuu ku leeyahy mugta qalabka waa loogada sabaana joog waa loogadaa waa la shaqo gelinaya ya qalabkaana loogadaa la shaqaysanaya meeshaan lama soo qona koon baa lagu ridaa shaqaa loo diraya maalinta isniinta inta noqon hadduu ilaahay maya xagga tukan ya tukaanka geedka agtiis ya tukaanka kuwa buuq marabaan laakiin geedka agtiis ninka anaa idin soo wacay laakiin isniinta yaa lagunaya aniga shalay waa imid wayni wahayd isniinta shalay ani waa imid ani waa imid inkaan waa idin kale imaanaa marka isniinta maalinta isniinta haddii ilaa yidhahdiya anoo balabo walaalayaalow waxaan ka codsanayaa hawshan waa wadina waa balaarinaa dhalinyaradan waa dhiirigelinaa qof walba oo caseeya maa iyaa ku soo maya waa taqanin moo nina aad utiina shaqaysanaysiin ya soobada waxaa leeyahay qalabkaana loogadaa hadduu waxbarasho rabana waxbarashaa la geena hadduu shaqaysanayana qalabkaana loogadana waa shaqaysanaya ininkana shaqaysta koombooyin fiican gata kuwaan markayna ka dhamaadaan haddaan joogana inay gadaya intaana bixin waa inay gada marka walaalayaalow balanteena waa sidaas qofkii dhalinyaradan caawinaa waa ila soo xiriiri karaa please waxaan kaga tegayaa isku soo noqod wanaagsan iyo shaqo wanaagsan iyo balanteena in dhalinyaradan casayaasha la dhiirageliyo waxaa laga yaabaa nin inuu u baahan yahay inuu wax barto oo college lagu xareeyo marka qof walbana waa u sheegaysiin ninkii raba in college lagu xareeyo oo wax la baro college lagu xareeyana waxaa la soo deynaa bishii hal mar meesha ku cunteynaa meesha wax lagu baraa ninkii waxbarasho raba oo dhalinyarada waa soo wadi kartiin ya ninkii yidhahda aniga waxbarasho ma rabana dugsina waa la geenaya waxbarashada keliya halkaas maaya qofkii raba dugsi in laga bixiyo qur-aanka baranaya ya qofkii raba inuu qur-aan barto waa laga bixinaya ya college keliya maaya in la geenaya qofkii raba subaxda hore inuu dugsi la geeyo dugsiga xaafadiisa macalinka laga qoro waa layna geenaya macalinka lacagta waa la siinaa ininkan waxaa laga rabaa inaad dugsiga tagtiin markaa kasoo baxdin macalinkana waa loo sheegaa macalin ilmahan subaxda hore galabta ma soo noqon karaan waa soo shaqaysanaysiin subaxda hore aad tegaysiin marka inaad soo baxo shaqaad gelisiin ya qofkii qur-aanka raba inuu barto waa layna geenaya anaa dambaan qaada ya qof walba ha kasoo fakaro hay-adaa ani dugsiyaan rabaa xaafadeeda ku yaalla ka xaafadda ku yaalla waaya intaada kasoo bixin soo dhiganaya shaqadaada soo aadi ya haduu ilaahay marka walaalayaal balanteena waa sidaas waxaan kaga tegayaa isku soo noqod wanaagsan iyo shaqadan oo aan dhalinyarada u wadi doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi